su-aasha hore ee ah ninkaygii wuu i furay 3 dalqadood buu i furay qiil ma la ii helayaa waxaa la isweydiinayaa 3 dalqadood ma hal mar buu ku wada dhawaaqay oo hal mar bay ahayd mise waqtiyo kala tagsan bay ahayd hadday mutafariq ahayd oo waqtiyo kala tagsan ay ahayd 3 jeeroo isxigana uu furay haweeneyda qiil looma hayo ilaa nin kale ay soo guursato marka iyadaa laga rabaa 3 dalqadood qaabkay ahayd haddiise hal mar uu yidhaahdo 3 dalqadood baan ku furay oo wada socda waa masalo khilaafiyo culimmadu ay isku khilaafeen culimmada qeybta muxaqiqiinta ahina waxay leeyihiin hal dalqaa laga soo qaadayaa hal dalqo ayaa laga soo qaadayaa waa haddii hal mar ama hal fadhi uu ku yidhaahdo 3 dalqadood baan ku furay haddayse mutafariq tahay oo sida soomaalidu u badan tahay inta badan waataan tilmaamaya cadhadan inagu badan dalqadii iyo wixii ugu dambeeyey baa la soo qadimayaa waan ku furay haddana waan ku soo ceshaday ayaamaa la wada joogi waan ku furay 3du markay dhammaato iyadii baa qiil raadinayso waxay odhanaysaa anaa mindi u qaatay isna wuxuu odhanayaa carruur badan bay haysaa haddii 3daa dalqadood ay sidaa ku dhacaan ama carruur badan ha kuu hayso ama mindi ha kuu qaadato ilaa nin kale ay soo guursato